bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan qodobada wararka aynu idiin hayno waxaa ugu waaweyn dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxii maanta muqdisho ee maqaaxida lagu weeraray oo sii kordhaya bamgacmeed lagu weeraray xaafad ay dad shacab ah degan yihiin oo ku taalla degmada howlwadaag ee gobolka banaadir maamulka galmudug oo shuruudo ku xidhay heshiis ay la gasho dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha oo midowda yurub kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka maamul goboleedyada munaasabad lagu abaalmarinayo macallimiin ku tartamayay qur'aanka kariimka oo muqdisho lagu qabtay howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya oo muddo kordhin loo sameeyey xilli aanan weli la soo magacaabin wakiilka qaramada midoobe ee dalka iyo cabsi laga qabo howlgal ay hindiya ka fulisay hawada sare oo halis gelin kara dunida inteeda kale warbal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba habeen wanaagsan mar kale waa khamiis taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 8 bisha saddexaad ee maaj sannadka 2019 caawa waxaa noo warramaya cabdilqani cabdulaahi ibraahim cabdulaahi xuseen canshuur aad baad u mahadsan tahay saaxiibayaal ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka faahfaahsan saacadba saacadda ka dambaysa tani markii duhurnimadii maanta uu qarax ka dhacay maqaayad ku taalla inta u dhexaysa isgoyska dabka iyo sidoo kale hoteelka weheliya ee muqdisho ayaa waxaa sii kordhaya tirada dadka qaraxaasi ku dhintay sidoo kale kuwa ku dhaawacmay dadka dhintay ilaa hadda tiradoodu waxay kor u dhaaftay 20 qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay 25 kale sidoo kale gelinkii dambe ee maanta ama maqribadii bamgacmeed ayaa lagu weeraray xaafad ay dad shacab ah degan yihiin oo ku taalla degmada howlwadaag ee gobolka banaadir halkaasi oo sidoo kale dad kale ay ku dhinteen farxaan maxamed xuseen ayaa faahinaya warkan in ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay halka in ka badan 25 kale ay ku dhaawacmeen gaari qarax lagu soo raray oo maanta lagu weeraray waqtigii qadada maqaayad ku taala inta u dhaxaysa hotel weheliye iyo wadada dabka ee magaalada muqdisho dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay dhammaantood ahaayeen dad shacab ah oo uu ka mid ahaa xildhibaan hore cabdiqaadir shacab iyadoona dadka dhaawacmay uu ka mid yahay sheekh yuusuf cali caynte oo ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed dhismayaasha qaraxa ka ag dhacay iyo sidoo kale gaadiid badan ayaa halkaasi ku burburay khasaaraha ayaa waxaa badiyay goobta oo ahayd maqaayad iyo sidoo kale wada ay aad u isticmaalaan gaadiidka bajaajta iyo kuwa kale ee raaxada ah dad goobjoog u ahaa qaraxa ayaa keenan u warramay yoorta qarax wuxuu ka dhacay wadada dabka labada maqaayadood dalsan iyo horyaal maqaayadda horyaal iyo dalsan ayuu ka dhacay laba maqaayad aad u mashquul badan anigana marka xagga damban joogay qarax markuu dhacay isla markaan soo ordin waxaan u yimid meeshii oo meed wada daadsan iyo dhaawacyo badan hore waxaan ka galay daabulitaanka iyo dhaawacii waxaan ka galayba marka alxamdulillaah inkastoo maaragtaa dhanka dawladdana ay maaragtaa xagga gargaarka aad iyo aad ay ugu liidata shacabkii ayaa aan isla kaashanay inaan dadka dhaawac meedkii iyo aan ka soo hoos saarno dhagaxaanta hoostooda ilaa meeqa mid aragteen meed badan ayaa jiray waa xili mashquul bay ahayd oo duhuray ahayd oo xili la wada qadinay ahayd xili maxay ahayd dadka ay wallahi ni qasaaraha ilaa 7 dhimasho waa arkay anigu indhahaygan saaray dhaawacuna runtii ma tirin karno ambalaas ambalaas baa qaaday kulleeyday wixii dhici lahaa waa dhaceen runtiina waxay ahayd dad badan oo dhimasho ah oo aan garanayo dhalinyaro badan oo meesha ka qadaynaya xilliga waana meel maqaaxi ah ee cunto lagu cunteeyo gaari oo baakin yeelay ma aha ama gaari markaas soo galay maya gaarigu markaas soo galay sidaan u malaynayo sababta ani maqaaxida meeshan ka qadaynay banaankan fariisanay banaanka fadhigan ku sheekaysanay iyo qarax hal mar aan la kulanay meel naga xigaan garan weyn ka bacdi aan dhibashay dhaawacyo duntay aragnay laamaha ammaanka ayaa u muuqatay inay ka gaabiyeen ka hadalka wararka ku aadan qaraxyada muddooyinkii dambe dhacayay cid ka hadashay gaariga qaraxay dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay intaba
marka laga reebo aamin ambalaas oo sheegtay in ay qaadeen meydadka 11 qof iyo dhaawac 16 kale sidoo kale baarmaqribnimadii caawa ayaa bangacmeed lagu weeraray laanta xaawataake ee gobolka Banaadir halkaasi oo hal qof uu ku dhintay qof kalena uu ku dhaawacmay saacadii la soo dhaafay waxaa jira qoraal aad loogu faafiyay baraha bulshada kaasi oo ahaa digniinta qaraxyo la sheegay inay xogtooda heleen hay'adaha ajaanibta ee dalka ku sugan kaasi oo la tilmaamay inay yihiin gaadiid qaraxyo lagu raray lagana cabsanayo in lagu weeraro goobaha ay bulshada iskugu yimaadaan iyo xarumaha dawladda tan iyo arbacadii la soo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay in ka badan 10 qarax oo qaarkood ay ahaayeen weerar ay la socdeen rag hubeysan farxaan wad mahadsan tahay maamulka galmudugna waxa uu shuruud ku xiray heshiis ay la galaan dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ku aadan isfahamwaaga xilligan ka dhaxeeya ee waqtiga ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee maamulka galmudug iyadoo aan ogsoonahay in dhawaan wasiirka arrimaha gudaha uu deegaanada maamulkaasi safar ku tagay cali cilmi salaada dhameystiro warkan hoggaanka sare ee maamulka galmudug ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay faahfaahin kaga bixiyeen kulamo saacado badan qaatay oo ay la yeesheen maalin ka hor wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye kulamadaas oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada galmudug ayaa lagu sheegay in kulankaasi mirdhalkiisa rajo wanaagsan ay ka qabaan hoggaanka galmudug waxayna intaas raaciyeen in ay la qaateen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya la tashiyo isla markaana ay u gudbiyeen tabashooyin ay qabaan taas oo la xiriirta hakadka wada shaqeynta u dhaxaysa iyaga iyo dawladda ay xubinta ka yihiin ee Soomaaliya madaxtooyada galmudug ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ay ku wargeliyeen in marka hore cunaqabateynta laga qaado oo loo fasaxo lacagta ay ka xayirtay xukuumadda Soomaaliya wixii markaas ka dambeeyana ay wada hadallo dhab ah dhameystirna u noqon kara xalgaarista heshiis dhab ah oo dhaxmara labada dhinac ay la geli doonaan madaxda dawladda Soomaaliya war-saxaafadeedkan ayaa daba socda safarkii wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug dawladda Soomaaliya ayaana ku adkeysanaysa in doorashada galmudug ay dhacayso bisha Juulaay ee sanadkan halka madaxda galmudugna ay doonayaan in doorashada galmudug ay dhacdo 2021 isla wararka la xiriira wasiirka arrimaha gudaha ayaan ku jirnaa Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu Muqdisho kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka socota midowga Yurub isagoo la tilmaamay inuu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka ka dhici doona maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Galmudug Cabdullaahi Xuseen Canshuur Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda khubaro ka tirsan wasaaradda xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kheyre ayaa kulan maanta la qaatay safiirada midowga Yurub u jooga Soomaaliya arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlayay waxay ahayd dib u heshiisiin qaran oo si dhab ah Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka looga yeegleelo doorashooyinka maamul goboleedyada ku soo food leh sida Jubbaland iyo Galmudug waxaa intaa dheer oo si aad ah looga hadlay doorashada qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka qabsoonta sanadaha 2020 ilaa 2021 wasiir Cabdi Maxamed Sabriye oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa yiri waxaan halkaan kula kulanay safiirada midowga Yurub oo aan u balansanayn in siyaasadii dib u heshiinta qaran oo soo dhamaatay golaha wasiiraduna ansixiyeen aadna loogu bogaadiyey tiimkii ka shaqaynaya howshaas iyo wasaaradda iyo xukuumadda ee waddankaba dhammaantiis inay nala arkaan siyaasaddaas soo gabagabowday hirgelinteeda inaan isla aragno iyaguna ay ballan qaadeen inay sidii ay qayb weyn uga qaateen samayntii siyaasadda inay qayb lixaad la ka qaataan hirgelinteeda marka arrimahaasaan ka hadalnay safiirada waanan isla afgaranay runtii biri ayaa loo ballamay in loo daadego arrimaheeda farsamo iyo dejinta qorshaha lagu hirgelin lahaa waxaan rajaynaynaa sidii horeba aan u wada shaqayn jirnay wadamada midowga Yurub oo dhan mid iyo EU ahaan waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno oo gaar ahaan arrinkan aad iyo aad masiiriga ugu ah horu socodka qaranka Soomaaliyeed inay gacan ka geysan doonaan
ka sukow arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa midowga Yurub waxa uu kala hadlay mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub ay ka fulinayaan dowlad goboleedyada dalka oo iyagu xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalk Soomaaliya sida dadka deegaanka mashaariicda ay uga faa'iideysan lahaayeen. Waxa uu sheegay in dhammaan waxyaabihii maanta kulanka lagu soo hadal qaaday xal rasmi ah laga gaaray. sida ay ku waramayso wariyaheena Shamis Xasan Haruun, munaasabad lagu abaalmarinayay macallimiin ku tartamay Qur'aanka Kariimka ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay. munaasabad lagu soo xidhay tartanka Qur'aanka oo loo qabanayay macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee Soomaaliya isla markaana ay maalgelinaysay shirkadda Hormuud ayaa maanta lagu qabtay beerta Daarusalaam ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Cabdulbaari Cabdiraxmaan Xuseen oo saxaafadda la hadlay munaasabadda kadib ayaa waxa uu ka warbixiyay tartanka ay qabteen iyo sidoo kale tirada ku guuleysatay tartankii hore loo qabtay. aniga oo ku hadlayo magaca mu'assasat al-Maahir lil-Qur'aan al-Kariim oo qaban qaabisay barnaamijkan tartanka macallimiin musaabaqatu al-muallim al-Maahir lihifdh al-Qur'aan al-Kariim wa tafsiirih wa tartan sanawiya gaarna u ah macallimiinta quraanka waxaana loogu gaar yeelay li'annahu macallinka markii uu ku najaxo quraanka iyo xifdintiisa asagana horumar uu ka gaaro ayuu bulshada horumarin karaa. mu'assasat al-Maahir marka waxay isxil saartay macallimiinta inay ku dhiirigeliso quraanka xifdintiisa iyo muraajacadiisa. tartanka quraanka oo loo yaqaan musaabaqat al-muallim al-Maahir wuxuu bilowday sanadkii la soo dhaaf waxaana ka qayb galay ilaa 180 macallin oo ka kala yimid daafeedka kala duwan ee Soomaaliya sida Boosaaso, Hargeysa, Baydhabo iyo Muqdisho. kaalmaha dadka galay ninka koowaad abaalmarintiisii waa $5,000 iyo cumra in loo kaxeeyo oo loo wado. ninka labaadna wuxuu qaatay $3,000 iyo cumra. ninka saddexaadna $2,000 iyo cumra. waxaan sidoo kale xusaynaa shukriina u celinaynaa sharikad Hormuud iyo waliba Bank Salaam oo maalgeliyay musaabaqadan ayada ah. waliba waxaan si gaar u xusaynaa xadiiqad Daarusalaam beerta Daarusalaam oo hadda aan joogno walaalaheen oo albaabyada noo furay oo ma garanaysaa khidma iyo wax badan nala qabtay. tartanka loo qabanayo macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee Soomaaliya ayaa waxaa la qabtaa sanadkiiba mar iyadoon haatan uu noqonayo sanadkii labaad ee lagu qabto Soomaaliya. xilli muddo dhowr bilood ah uusan joogin wakiilka rasmiga ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii dawladda Soomaaliya ay ceyrisay wakiilkii hore ayaa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya xilligan waxa uu loo kordhiyay muddada amaba waqtiga uu shaqeynayo. Maxamed Axmed Tuuri raafaahiya warkana. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii soo saaray qaraar ay ku cusboonaysiinayeen muddada howlgalka caawiya Soomaaliya ee qaramada midoobay waxaana muddada la gaarsiiyay 31 Maaj sanadka 2020 sida ku xusan qaraarka oo tirsigiisu uu yahay 2461 ANSOM waxa uu sii wadi doonaa taageerada iyo talasiinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. qaraarka cusub ayaa waxa uu sidoo kale ANSOM ka codsaday sii joogtaynta iyo xoojinta joogitaankiisa dhammaan xarumaha maamul goboleedyada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in xafiiska ANSOM uu muhiim u yahay taageerada siyaasadeed iyo midda farsamo iyo sidoo kale taageerada sanadeed ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u baahan tahay si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah xor ah nabad ah loona dhan yahay sanadka 2020-2021. goluhu waxa uu sidoo kale ku booriyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay fuliyaan isbedelada muhiimka ah ee wadanka looga baahan yahay si qorshaha amniga qaranka loo dhameystiro. qaraarka ka soo baxay arbacadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa lagu cambaareeyay xadgudubyada ka dhanka ah carruurta, kufsiga iyo afduubka oo goluhu uu ku eedeeyay al-shabaab. qaraarku waxa uu sidoo kale ku booriyay dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay dhameeyaan khilaafka iyo xadgudubyada wadanka ragaadiyay. xafiiska ANSOM ee muddada loo kordhiyay waxaa la aasaasay sanadkii 2013 waxaana sanad walba loo cusboonaysiiyay muddadiisa. hadda xafiiska waqtigiisa waxa uu ka ekaa 31 bishan waxaase la gaarsiiyay 31 Maaj sanadka 2020. halka aad warka habeen kala socotaan waa KNN Muqdisho Soomaaliya. Mareykanka ayaa qayladaan waxa uu ka soo saaray dhibaato dunida ay ka soo wajihi karto tijaabo ay ciidamada cirka ee dalka Hindiya ay sameeyaan ama ka sameeyaan hawada sare. Qasimaha wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa ka digay dhibaato ka dhalan karta tijaabadii ay Hindiya ku sameysay hubka lidka ku ah qalabka satellite-ka kaas oo ay arbacadii ku burburisay mid ka mid ah satellite-yadeeda. Patrick Shanahan ayaa sheegay in Mareykanka ay weli daraasadeynayaan cawaaqibka ka dhalan kara tijaabadaas halka xukuumadda Delhi ay ku adkaysatay in howlgalkeeda uusan halis abuureynin. Fariinta aan dirayo waa dhammaanteen waxa nolosheenna ku xiran tahay hawada sare.
yaynan halkaas ku samaynin isku dhexyaac. hawada sare waa inay noqoto meel aan howlaheenna ku wada fulin karno. hawada sare waa meel la doonayo in dadku ay si xor ah ugu wada howlgalaan. waxaa sidaasi warbaahinta ka yidhi master shanahan oo shir jaraa'id qabtay kadib tijaabadii ay samaysay hindiya. saamaynta ka dhalan karta tijaabada noocan ah ayaa waxay waxyeelayn aan wanaagsanayn u geyn kartaa baa layidhi isu socodka hawada satellite-yada ee lagu adeegsado shacabka ama loogu adeego shacabka dunida iyo sidoo kale howlgallada militari ee dowladaha. waxaa suurtagal ah marka uu isku dhexyaac ka dhaco hawada sare in qalabka satellite-yada ay waxyeello hor leh ku sababaan, taasi oo saameyn ku yeelata dadka dhulka ku sugan. balse dowladda hindiya ayaa sheegtay in ay laga maarmaan tahay inay sii wado tijaabooyinka xilligan ay samaysay. warkii saaxiibayaal oo aad caawa kala socoteen idaacadda kulmiye ee muqdisho waa naga intaas intiina u dhaafay. waxaad dib kaga baaran kartaan website-keena radio kulmiye.net, sidoo kale facebooka oo aan xilligan live ka nahay, iyo barta ama kanaalkeena youtube-ka ee KNN. idaacadaha goboladana wadani hayaan iyo cadaado iyo Soomaali American Radio Mareykanka ah. nabadgeliyo.